Dhammaantiinba waa wada salaaman tihiin. Waxaan ku soo dhoweynayaa maanta fasalkayga. Warbixintani waxay anfacaysaa dadkeenan macalnimada ku shaqeeya ee jooga adduunyada dacaladeeda, si maxaa la yiraahdaa waxyaabo talooyin ah ama hab ay xiisadda kaga shaqeyn karaan inay halkan ka qaataan. Kolley mid waliba kaama anfici doontaa laga yaabaa xaggan, laakiin sida ugu macquulsan ayaan isku dayaynaa inaan kugu sharaxno waxaan ula jeedno. Cashirkayga maanta sabuuradda waxa ku qoran ayuu quseeyaa. Sabuuraddaani maalin walba sidaan uma muuqato, laakiin maanta sidaan ayuu yahay casharka. Kan koowaad waxaa ku qoran laylis, oo waa cashar ay xaafadda u qaateen, way soo diyaar garoobeen. Aniga wuxuu yahay hadeer erayo ay toddobaadka hore qaateen. Waan u yeerinayaa, erayada ayay qorayaan si maxaa la yiraahdaa qoraalka ay u saxaan eray walba ay u kicin karaan in ay qori karaan. Qaybta labaad waxaa ku qoran waxaad gashaa ciwaankani dambaalsida.com. Meesha markii la galo maxaa laga qabanayaa? Waxaa caddeynaysa qaybta saddexaad oo waxaa ku jira maqaal aanu dooneyno inay ardayda ay soo akhristaan ama ay soo dhegeystaan. Meesha waa laga akhrisi karaa, waana laga dhegeysan karaa, oo muuqaal yaraa la socdo oo dul saaran yahay waxa uu qoraalku ka hadlayo. Qoraalka magaciisana waxaa la yiraahdaa, ama maqaalka magaciisa waxaa la yiraahdaa xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo mustaqbalka qofka. Lagu daray in ay qortaan erayo iyaga soo xusuusinaya qoraalka ay akhristeen amaba ay soo daawadeen. Caadi ahaanta maqaalkani ma ahan oo keliya inay fahmaan wuxuu ka hadlaya. Maqaalkani wuxuu quseeyaa weliba in uu dhalinyarada hamigooda sare u qaado, si maxaa la yiraahdaa mustaqbalka fog ay uga fikiraan iyo iskuulka muhiimadda ay u saaraan ama waxbarashada oo dhanba. Qaybta afraad su'aalo ayaa ku qoran. Su'aalo ayaan ka weydiin doonaa maqaalkan ay soo akhristeen ama ay soo dhegeysteen. Kadib qaybta shanaad shaqeyn ayaa ku qoran. Shaqeynta maanta waxay khusaysaa warqadan xagga ii saaran, oo waa cashar la akhrisanayo kadibna su'aalo laga jawaabayo. Waa kan marka qaybtii afraad su'aasha aad ku arkayseen, ama su'aalaha aan ka weydiin doono su'aal ka mid ah waa tan. Waxay leedahay marka, muxuu ka hadlayaa qoraalku ama muuqaalka aad soo dhigaya, qoraalka aad soo akhrisatay ama muuqaalka aad soo daawatay. Erayadan oo dhan waxaa sheegay ardaydeydii fasalka aan ku hayay, iyaga ayaa kala soo dhex baxay. Okay, erayadani markay sheegaan marka ma ka qorayaa oo keliya? Maya, waxaan sameynayaa marka, ama aan sameeyey in aan weydiiyo ereyga ay sheegeen macnihiisa wuxuu yahay, amaba in la geliyo weedh dhammaystiran si ay u bartaan ereyga meesha loo isticmaali karo ama halka uu ku habboon yahay in loo isticmaalo. Sida aad aragtaan, erayadii oo dhan waxaanu gelinay weedho sheegaya ereyga macnihiisa, amaba in weedh caadiya aanu dhex gelinay erayada qaar. Marka erayadan oo dhan waa erayadii ayaga soo sheegeen, macnahana iyaga ayaa sheegay, ama qofkii sheegay ereyga waa sheegaya macnihiisa, ama waxaa sheegay qof kale ama arday kale baa sheegay. Ereyga ugu dambeeya cilmi baare waad aragtaan, sababtoo ah waqtiga xiisadda ayaa inaga dhacday. Marka adiga haddii aad isticmaali doonto maqaalkan, su'aalahan iyo habkan, waxaan rajeynayaa ardaydaada inay waqti u heli doonaan in ay ka jawaabaan oo aad qortaan. Qaybtan ugu dambeysana adiga ayay kugu socotaa, oo waad ku mahadsan tahay haddii aad noo soo dirto talooyin amaba faallooyinba, si maxaa la yiraahdaa aan u soo diyaarino casharo habkan oo kala ah oo caawinaya ardayda yaryar ama dadka waaweynba haddii ay suurtagal tahay ay doonayaan inay waxbarashada hore usii wadaan. Haddii arrinkaas aad hayso waxaad nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeena gmail-ka oo halkan hoose ku qoran, waa dambaalside 10@gmail.com. Marka waanu kaaga mahadcelinaa wax walbo aad nala soo wadaagtid insha Allah.
Xaggaana waxaan kugu tusayaa ciwaanka sida uu u muuqdo. Waa kaa xagga kore dhambaal sida dot com markaa soo gasho. Wejigiisa hore sidaan buu u muuqdaa. Marka anaga ujeedka aan ka leenahay maqaalo badan baa ku qoran oo maanta, laakiin maqaalka aanu ka hadlayna wuxuu quseeyaa xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo mustaqbalka qofka. Kadib ardayga xaggaas uu gelayaa. Markii uu gudaha u galo maqaalka, waxaa u soo baxaya maqaalka oo qoraal ah iyo qaybtan la socota ee codka ah. Marka qaybtan way dhegeysan karaan, ama hadduu ardayga doonayo inuu akhristo qoraalka oo dhan wuu akhrisan karaa. Sidaa weeye marka waxaan doonaynaa idiin sheegno maanta. Sidaa hore in kugu sheegnay, waa in kaga mahadcelinaynaa haddii aad inoo soo dirtaan talooyin iyo faalooyin ku saabsan arrimaha.